السلام عليكم سو dhawaad asxaabta ku helin channelka EKSOM kuna soo dhawaada xigmado jecel balse inta aynan bilaabin muuqaalkeena fadlan haddaad nagu subtahay subscribe dhaga balka furo xigmado jecelku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu hanuunka badan ee la waayo xushmad la'aan jecelku waa luma daryeel la'aan jecelku waa caajis daacad la'aan jecelku farxad ma leh aaminaad la'aan jecelku waa mid aan degnayn goortii aad tiraahdo waan ku jecelahay waxaad banan ku sameynaysaa qofka kale qalbigiisa waa inaad ku muujisaa ficil si aad u cadeysato jecelku ma aha qeyro kaliya jecelku waa ficil jecelku ma aha dareen kaliya jecelku waa daryeel qofka sida dhabta ku jecel wuxuu ka hor istaagaa inaad dambi samayso qofka aan sida rasmiga ku jecelayn wuxuu kugu dhiirigeliyaa humaan iyo inaad dambi samayso dad badan oo aragtida wajiga kaliya waxa ku jeclaada gadaal bay ku qoomameeyaan sababtoo ah jecelku marnaba kama dhasho quruxda wajiga balse waa quruxda qalbiga intaadan qofka jeclaan marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay haddii uusan naftiisa jecelayn adiguna jecel kuma siin karo goortii qof uu ku jecel yahay ma aha had iyo jeer inay ka sheegaan waxaad markasta ka garan kartaa habka ay kula dhaqmaan haddii qof aad isjecleedeen ka tago ha murgoon ha isgubin cuntada ha ka soomin heeso badan ha isku maaweelin fiiri naftaada inaad nooshahay oo neefsanayso kadibna horay u wado noloshaada u sheeg qalbigaaga in qof kaa tegay ee aysan ruuxdaadii kaa tegin ha u bedelin midabkaaga iyo naftaada si dadku kuu jeclaadaan ahaw qofka aad tahay dadka saxda ayaa ku jeclaanaya dadka sida dhabta ay isu jecel si sahlan kuma kala haraan haddii ay jirto 100 sababood ay ku kala tagi karaan waxay helaan hal sabab ay ku wada joogi karaan